السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دhowaada dhamaantiin waa mar kale muuqaal cusub. haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato fadlan subscribe leh halkan si macluumaadkan soo gelina ay si dhaqso leh ku soo gaaraan. sidoo kale waxaad ku soo biiri kartaa barteena Telegramka Somali Online Opportunities maadaama halkaas maxaa la yiraahdaa qoraal iyo maxaa la yiraahdaa sida aan isku wadaagno inta badan ay u badan yihiin maxaa la yiraahdaa wixii degdeg oo dhan halkaas soo gelino. fadlan ku soo biir linkiga qaybta hoose ayaan ku dhigi doonaa. maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno waxa la yiraahdo farqiga u dhaxeeya sheeg day trader iyo swing trader iyo faa'iidada ay kala leeyihiin iyo labadooda kan fiican mise kan faa'iidada badan. haddaba soo dhow mar kale ayaan ku leeyahay sida ku tahay day trader iyo swing trader farqiga u dhaxeeya waa waxa la yiraahdaa day traderku waa qofka day traderka ah waa inuu trade-ka u haysan karaa saacado maxaa la yiraahdaa si maalinlaane oo suuqa u soo gala. qofkaas ayaa waxaa loo yaqaanaa day trader kuma xirna intuu maxaa la yiraahdaa lacag sameeyo mise intuu sheeg maxaa la yiraahdaa maalinkaas uu khasaaro. muhiimaddu waa inuu maalinkaas qof suuqa maxaa la yiraahdaa dhaqdhaqaaq ka sameeyo uu yahay. qofkaas ayaa waxaa loo yaqaanaa sheeg day trader. sidoo kale swing trader waxaa loo yaqaanaa qofka markuu trade-ka uu haysto maalmo isbuuc maxaa la yiraahdaa bilo. qofkaasna waxaa loo yaqaanaa swing trader. inta badan dadka swing traderka waxay u badan yihiin maxaa la yiraahdaa wax company camal oo group camal ka kooban yihiin wax badan dad badan camal mise dad sheeg akoon lacag weyn haysto kale mise waxaa laga yaabaa qof suuqa waqti badan aan u haynin inuu yahay laakiinse trade-ka markaas oo kale uu galo kale muddo waqti dheer oo kale ku raago oo haysto kale maadaama uusan mar walba haleeli karin inuu trade furo oo hal trade oo kale uu raadiyo iyo laba trade oo kale oo mustaqbal dheer leh oo dhowr bil uu ku jiri karo kadibna uu mise sheeg isbuucyo badan kadibna uu trade-kaas galo oo intaasoo maxaa la yiraahdaa maalmood uu la sii socon karo. haddaba qofka sheeg day traderka iyo qofka sheeg swing traderka yaa faa'iido badan markii la dhaho. qofka day traderka waxyaabo badan ayuu suuqa ka faa'iidaa maadaama aad maalin walba suuqa soo galaysid aqoon joogta ayaad ka faa'iideysaa cilmiyaad badan ayaad maalin walba la kulmaysaa. halka laakiin qofka sheeg swing traderka uu yahay qof hal mar wax falanqeeyay oo wiigaas wax falanqeyn usoo galay kadibna dhowr week iyo bil iyo ku dheganaada trade-ka oo shaashada mar dambeba aan laga yaabin inuu ahaado qof aan kusoo noqonin. soo marka inaad maalin walba joogtid waxay kaa dhigaysaa inaad qof update walba la socon kara update walba fahansan inaad tahay. marka halka sidoo kalena day traderku uu waxyaabaha kale uu ku fiican yahay waxaa ka mid ah in aad maxaa la yiraahdaa trade-yo badan aad daily aad dhisi kartid 2 3 4 aad maalin walba aad maxaa la yiraahdaa aad geli kartid oo sheeg haddii 4 trade aad gashid oo kale iska dheh 4 trade baa maanta gashay 4 trade laba ka mid ah waxaa waaye waa inaa faa'iida laba ka mid ah hadday kugu soo noqdaan sheeg mise meel dhexa ku kala xirataan mise khasaare ay kugula kulmaan still waxaa ku jirtaa faa'iido ayaa ku jirtaa. halka laakiinse swing traderku ay wiigaas iyo bishaas dhan hal trade ku jiri karaan maadaama trade-yada dhaadheer aan mar walba aan la helin ay yihiin trade iska yar oo iska xadidan. waxaa marka halkaas trade ah heshidne currency waxa ma currency waxa ma sababtoo ah trade-ku ku jiray oo waqtigaas dhan la haystay ayaa si dhaqso leh waxaa laga yaabaa inuu maxaa la yiraahdaa meesha stop loss ka keentay mise stop loss kaada hor meesha joogay inuu ku dhaco anytime. soo ma ogid meeshuu gaari karo iyo meesha ku dhici karo. waxyaabaha ay ku kala fiican yihiin ayay qayb ka tahay. mar walbana waxaa muhiim ah qofka day traderka labadooda markii loo yaa faa'iido badan lacag sameyn badan. tusaale swing traderka oo kale wuxuu ku xiran tahay waaba ka soo qaad waa company waaba sheeg maxaa la yiraahdaa bangi oo kale waa dad aday group camal oo ka soo qaad halkaas trade ay galeen waa run lacag badan ayay sameynayaan maadaama ay lacag badan ay akoonkooda ku jirtay. tusaale hadday dhici lahayd intaasoo lacag oo groupkaas lagu leeyahay hadduu hal qof lahaan lahaa oo day traderna ahaan lahaa
faa'iidadaas halkaas maruu sameeysay lacagtaas markaas ay galeen ayaa waxaa laga yaabaa qof day trader oo lacag intaas oo kala haysta hadduu jiro inuu maxaa la yidhahdaa hal maalin ku sameeyo mise saacado 4 saacadood 5 saacadood uu ku sameeyo. So mar walba waxaa faa'iido badan qofka day traderka oo daily maxaa la yidhahdaa bb suuqa ka sameynaya oo daily update information fiican sameynaya. So differencega u dhexeeya maxaa la yidhahdaa day trader iyo swing trader waa intaas. Tusaale kale hadda haddii aan maxaa la yidhahdaa shaashadeeda wax yar kula wadaago aan ku tuso marka halkan oo kale daily oo kale la joogo tusaale haddii aan shaashadeeda kula wadaago meeshaan oo kale waxaa ujeedaa haddaba haddii aan shaashada wax yar tusaale yar aan kugu tuso waxaa ujeedaa tusaale suuqa markuu halkan uu kasoo kacahayay oo down trend dhigaan oo dhan uu imaanayay waxay ahayd Febraayo 3 sidoo kale waqtigan haddeerta meeshaan hoose uu joogana waxaa waa uu yimid waa 12 July. So qofka halkan daily kasoo galay ii sheeg Febraayo 3 soo galay total wuxuu uu sameeyaa laga yaabaa 450 iska dheh 450 bib. Laakiin waxaa laga yaabaa qofka aan maxaa la yidhahdaa sheeg aan daily traderka halkan markuu suuqu yimid oo halkan oo yimid wuxuu sameeyey 170 bib. haddana again markuu suuqu haddana halkan uu yimid oo meeshan soo noqdo inuu fursad kale ka helaa laga yaabaa 180 kale uu sameeyey. sidoo kale markuu halkan kale uu yimid oo kale waxaa laga yaabaa inuu ruleskiisa u waafaqeen oo 170 kale sameeyey. already sidaas ayuu 500 oo bibs uu ku sameeyey. halkan oo kale xitaa inuu suuq kasoo trade gareeyaa laga yaabaa. So meel walba oo suuq uu ka noqnoqdo qofkaas waa si daily ay uga trade gareynayaa intuu 4 hourka iyo maxaa la yidhahdaa 2 hourka iyo 1 hourka oo kale u yimaado. laakiin halkaas qofkaas waxaa laga yaabaa inuu halkaas uu keliya uga dheganaa oo ilaa halkaas. mideeda kale waxa dhici karaa waxay ahayd halkan markuu suuq soo kacay oo halkan oo kale yimid oo 230 kaas bib ku siiyo kale waxaa ujeedo kale mar walba inuu noqonayo kale. So currency ma ahan suuq ugu soo noqdo markaan ay anytime kugu soo noqon karaa oo stop loss kaaga dhufan karaa. So laakiin qofkan already wuxuu kala baxay kan halkan markii uu kala baxay halkan markii limit kana waa kala baxay halkan markii limit kana waa kala baxay halkan markii limit kana waa kala baxay. So laakiin halkan qof waxa laga yaabaa inuu meelahan target gareynayo ka soo qaad gidaarkan halkan hoose in ilaa halkan level waa sax waa si macquul oo qofku uu predict fiican uu sameynayo. laakiin se wax hubantii suuqa ma yaalaan waxay ku fiican yahay suuqu mar walba faa'iido sameysid inaad faa'iidada aad percentage ugu badan 60-70 aad gacanta kugu jirto si wixii ay kugu dhiirigeliyaan oo maalin walba aad ugu dhiiranaatid inaad soo noqotid oo wax kale aad sameysid. laakiin qofkan hadduu stop loss ku dhufan lahaa waa niyadjabkiisa iska badan. marka suuqa dhanna waa inaad daily soo gashid aad faa'iido sameysid si bishaas waxaa la yidhahdaa faa'iido la taaban kara aad suuqa maxaa la yidhahdaa uga soo muuqatid oo uga sameysid. haddii kale waxay noqonayaan dadaalkaadii iyo waxaa sameynayso dhan wax iska macbala oo wax aysan ka jirin oo maalin walba shaashada indhaha ay uga baxaan. insha Allah farqiga marka u dhaxeeya labadaasna swing trader iyo day trader inaad kala fahanteen ayaan rajeynayaa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.